Assalaamu calaykum. Halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa taariikh kooban oo ku saabsan madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar, Maxamed Mursi, iyo falcelintii ay ka bixiyeen madaxda dunidu kadib geeridiisii 17kii bishii Juun 2019. Muumin Maxamed Mursi oo loo yaqaan Maxamed Mursi wuxuu dhashay bishii Agoosto 20keedii 1951 waxaana ku dhashay magaalada Al-Sharqiya oo ku taal dhinaca bari Niil Delta ee dalkaasi Masar. Wuxuu injineeriyada ka bartay Jaamacadda Qaahira isagoo shahaadada koowaad ka qaatay sanadkii 1975. Waxaanu shahaadada masterta ee maadada injineernimada ka qaatay sanadkii 1978. Kadib wuxuu u safray Mareykanka si uu u sii wato waxbarashadiisa isagoo markaasi diyaarinayay shahaadada sare ee doctorate ama PhD-da. Markii uu ka soo qaatay shahaadada PhD-da Jaamacadda University of California sanadkii 1982, wuxuu bara sare ka noqday Jaamacadda California State Northridge, taasoo uu wax ka dhigayay ilaa sanadkii 1985. Waqtigaasi sidoo kale waxa uu u shaqaynayay wakaaladda hawada sare ee Mareykanka ee loo yaqaano NASA. Sanad kadib wuxuu ku soo laabtay dalkiisii hooyo ee Masar, waxaanu bare sare ka noqday Jaamacadda Sagasig oo uu jagooyin muhiima ka soo qabtay ilaa 2010. Mursi sidoo kale wuxuu noqday mid ku firfircoon dhanka siyaasadda isagoo xubin ka noqday Muslim Brotherhood ama ururkii laga mamnuucay dalkaasi Masar ee Ikhwaanul Muslimiin. Sanadkii 2000 waxaa loo doortay kursiga golaha shacabka ee madaxa bannaan sababtoo ah ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ah urur Islaami ah ayaa si rasmi ah looga mamnuucay dalkaasi Masar. Markii kacdoonkii Carabta ee loogu magac daray Gugii Carabta uu ka soo bilaabmay magaalada Tunis ee dalkaasi Tunisia sanadkii 2011, wuxuu dhammaanba gilgilay dalalkii Carabta ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Dalalkaasi oo ay ugu sii darnaayeen Liibiya iyo Masar ayaa aakhirkii xilka lagaga tuuray Xusni Mubaarak oo dalkaasi haystay 42 sano. Intaasi kadib waxaa la qabtay doorasho degdega taasoo sanadkii 2012 si xor iyo xalaal loogu doortay Maxamed Mursi oo ka sharaxnaa xisbigii Ikhwaanul Muslimiin oo muddo 80 sano ah ka soo jiray dalkaasi Masar. Kacdoono cusub oo hor leh oo ay dabada ka riixayaan reer galbeedku haba ugu horreeya Mareykanku ayaa dib uga curtay magaalada Qaahire iyo guud ahaan dalkaasi Masar, kuwaasoo looga soo horjeedo xukunka Maxamed Mursi iyo xisbiga Ikhwaanul Muslimiin. Bishii Julaay ee sanadkii 2013 ayaa xukun militari oo horkacaya madaxweynaha hadda ee dalkaasi Masar ay talada dalka kaga farmaroojiyeen Maxamed Mursi oo sanad kaliya xilka hayay, waxaana loo diray xabsiga isagoo loogu geystay falal aad u fool xun oo gaadhay in xataa loo diido daawada macaanka oo farabaas ku hayay Mursi. Waxaanu geeriyooday subaxii taariikhdu ahayd 17kii Juun 2019. Rabbi ha u naxariisto. 17 June 2019, Morsi appeared in court for a trial on charges of espionage. He asked the judge if he could speak during the session. In what is now his final address, Morsi demanded a special tribunal and better trial conditions. The public prosecutors say the 67-year-old then collapsed and died in a defendant's cage. A medical source has revealed the details of the medical condition of Mohamed Morsi, who died Monday afternoon due to a surprise heart attack during a court session for the espionage case. The source added that Morsi had continued to receive medical care and that there was no neglect to his medical condition in and out of prison. But human rights groups say Egyptian authorities ignored multiple warnings about Morsi's untimely death because of inhumane prison conditions. He was singled out for mistreatment. In the first 4 years of his detention, he had exactly 2 family visits. He was held in solitary confinement nearly the entire time of his detention. He never received the medical care that he asked for. He was not allowed to have the food and medicine provided by his family that virtually all other prisoners in Egypt are able to access. Last year, a panel of British politicians and lawyers said Morsi's treatment in prison was so bad that it could amount to torture. We predicted that if he didn't get the appropriate medical treatment, he may very well have a premature death, and of course, very sadly, that's what's happened. Torture is a crime of universal jurisdiction, and we found that the responsibility for that would sit all the way up the Egyptian chain of command. And the man who sits at the top of that chain of command is Egypt's current leader, President Abdel Fattah al-Sisi. The former army chief ousted Morsi in a military coup in 2013.
and since then has locked up thousands of people as political prisoners. This is the outcome that the Egyptian government has wanted for years for Morsi and also for other Brotherhood leaders like Mohammed Badia and Qairat al-Shalta. They don't want necessarily to execute these people because of the fallout that the executions would create, but they want to kill them slowly. There are now calls for an international investigation into Morsi's death in court, while his life in prison seemed entirely ignored by the world. Priyanka Gupta, Al Jazeera.